بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا ورركا حكتا عيارها وحيابا قوة وين السوقة كاليبسيقا عيارتويدا قودهان با هريالة غاردة يوروب. qodobada aynu idinku soo gudbin doonana waxa kamida warkeena waa kuwa ciyaartooyda sanadkan si bilaash ah ay ku aadi karaan kooxi iyagu marka ay doonayaan. Vicente Company kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester City oo la xaqiijiyay in uu sii joogayo garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester. kooxda kubadda cagta Manchester United oo wada hadallo dhinaca heshiis dheeraad ah ay la sameynayso ciyaaryahanka da'da yar ee Marcus Rashford iyo Massimiliano Allegri oo sheegay in aan marno u soconin inuu macallin u noqdo kooxda Barcelona. qodobadaasi ayaa warkeena idinkugu soo gudbin doona intaanan ku hormarin qodobka ugu horeeya, balse waxaan idinka codsanaynaa si markasta aad xog dhab ah oo sportiga la xiriira aad u heshaan subscribe saara si share gareeya. waxaan ku bilaabaynaa suuqyada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa dhawaan si rasmi ah markaa u furmaya oo kooxaha qaar ayaa waxay markaasi sameynayaan heshiisyo hordhaca oo markaa ciyaartooyda ay la gaarayaan. sidoo kale waxaa jira ciyaartooy door ah oo si bilaash ah kooxooda ugu tagi kara oo markaa kooxii ay doonayaan ay u aadi karaan. ciyaartooyda suuqyada yaala ee kooxda iyaga doonaan markaa aadi kara si bilaash waxa ugu horeeya ninka la yiraahdo Adrien Rabiot ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain qadka dhexe u maamula ka oo markaa kooxdu doono aadi karo. ninkan odayga ayaa la leeyahay kooxdu doono ayuu aadi karaa isagoo markaa kooxa la xiriirinayo ay kamid yihiin kooxda Barcelona, Manchester United, sidoo kale waxaa kamid ah Chelsea iyo Arsenal. Premier League ninkan aad baa looga doondoonaya. ninka labaad ayaa waxa uu noqonaya Andre Herrera. Manchester United ayaa dhawaan shaacisay in guud ahaan ba ciyaaryahan Andre Herrera ay fasaxayso xilli ciyaareedkan isagoo si bilaash kooxdu doono ugu beeri karo, laakiin waxa la leeyahay wuxuu heshiis hordhaca uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee magaalada caasimadda dalka Faransiiska Paris ka dhisan PSG isagoo kooxda United iska fasaxday oo si bilaash ah kooxdaasi ugu beeri karo. waxaan macquul ayaa leeyahay koox kale inuu raadsan karo ninkan. Vicente Company ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester City way fasaxi kartaa maadaama heshiiskii uu kula joogay kooxda uu dhacayo xilli dhow, taa bedelkeedana kooxdu doono aadi karo. laakiin wararka saaka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in Company hal sano dheeraad loogu darayo oo sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City. ciyaaryahanka afraad ee sida bilaashka kooxdiisa uga tagi karo waa Diego Godin oo kabtan u ah kooxda Atletico Madrid. dhawaan ayaa kooxda Atletico iyo isaguba waxay isku raaceen in la fasaxi doono, waana 33 jir aad looga doondoonayo Serie A iyo Premier League kooxdu rabo ayuu aadi karaa. James Milner ayaa kamid ah qadka dhexe kooxda kubadda cagta Liverpool oo isagu laftigiisa ciyaaryahan daa kooxda Liverpool waa ay fasaxi kartaa ayaa la leeyahay maadaama heshiiskiisii uu dhawaan dhacayo. waxaa sidoo kale qayb ka ah ciyaaryahanka Gary Cahill oo kabtan u ahaa kooxda Chelsea. dhawaan ayaa si rasmi ah Chelsea u sheegtay in ciyaaryahankan ay fasaxayaan. Juan Mata oo isagana Manchester United oo ciyaaro horeyna ugu soo ciyaaray kooxda Chelsea ee qadka dhexan aad ugu wanaagsan ciyaaryahan reer Spain ayaa sidoo kale markaa kooxda iska fasaxi karta ayaa la leeyahay oo markaa heshiiskiisana dhacaya waqti dhow. sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay sheegtay in albaabadu ay u furan yihiin oo uu tagi karo si free ah oo ku bixi karo Daniel Sturridge oo Riyanka England iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. waxaa sidoo kale qayb ka Danny Welbeck oo dhawaan Arsenal si rasmi u shaacisay isagu iyo waliba Jack iyo ciyaaryahanka kale u ciyaara kooxdaasi Ramsey in markaa ay fasaxan yihiin oo la diri doono. ninka ugu dambeeyay Sport ayuu ciyaaraa waa Brahimi, isaguna free ayuu ku bixi karaa ayaa la leeyahay. ciyaartooydaasi ayaa markaa ciyaartooyda sida freega markaa u bixi karaa oo kooxii ay doonaan aadi kara ayaa la leeyahay. dhinaca kale macalinka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la sheegay in markaa kooxda kubadda cagta Juventus ay fasaxayso isagoo muddo 5 sano oo xiriir ah halkaas ku sugnaa oo Serie A dalka Talyaaniga
ilaa 5 jeer uu kula guuleystay Juventusna 2 jeer uu gaarsiiyay finalka kooxda kubadda cagta Juventus balse aysan ku guuleysan. ninka ayaa waxa la leeyahay waxa aad loo xiriirinaya maadaama Juventus ka tagayo kooxa uu aadayo waxa kamid ah yaaliri Barcelona laakiin isaga ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in uu marna aan ku riyoon in uu macallin u noqdo kooxda Barcelona. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa la leeyahay waxa ay wada hadal la bilowday ciyaaryahanka da'da yar ee xulka qaranka England iyo kooxda Manchester United Marcus Rashford. Manchester United ayaa xilli ciyaareedka inuu soo dhaafnay waxa uu ahaa mid aad u xun maadaama kaalinta lixaad ay ku dhameysatay ciyaartoy door aan markaasi ay doonayaan inay ka tagaan sida Paul Pogba horena loo shaaciyay in Andrea Herrera uu aadayo PSG. Juan Mata ayaa kamid ah ciyaartoyda bixi kara ayaa la leeyahay laakiin United ayaa bilowday in ay wada hadallo la bilowdo ciyaaryahanka da'da yar ee dhinaca weerarka ugu ciyaara kooxda Manchester ee Marcus Rashford. ninkan oo da'diisu ay tahay 21 sano jir ayaa waxa uu aad u jeclaan lahaa ayaa la leeyahay inuu ka sii dhaxmuuqdo UEFA Champions League balse uma suuragelin oo kooxda ayaaba championkii ka hartay balse kooxda maamulkeeda iyo waliba Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaaryahankan aad u jecel inuu wali kooxda baaqi ku sii ahaado oo markaa maaliyadda guduudan ee caanka ah United ay ka ciyaarto markaa uu sii xirnaado laakiin ninkan ayaa waqtiyadii la soo dhaafay waxa la xiriirinayay koox door ah oo Barcelona ka mid tahay ayaa aad u doondoonayeen balse heshiiska ayaa macquul ah inuu goordhow dhaco United uu sii joogo. ugu dambeyntiina Vicente Company kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa la leeyahay kooxda ayuu sii joogi doonaa maadaama heshiiskiis dhawaan uu dhacayo oo lislaha in Pep Guardiola ninkaasi iska fasaxayo laakiin wararka ayaa waxay sheegayaan in hal sano dheeraad ah macallin Pep iyo guud ahaanba taageerayaasha ee Manchester City ay la doonayaan in ciyaaryahankaasi ay ku siyaastaan garoonka Etihad Stadium.